بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاليال marka hore waxaan ilaahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak mar labaad waxaan ugu salaamayaa salaanta muslimka ugu qaalisan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan baaqan ii soo dirayaa caawa mar kale waa walaalkiin Suldaan Cabdalle Dabarkaale oo cariga Ingiriisiga khasuusan magaalada London niga soo diray khasuusan magaalada London walaalayaal taariikhda maanta waa 17 caawa waa bisha Mars 2025 alxamdulillaah rabbil caalamiin 16 beri baa la dhamaystay Ramadaankii beritoole waa 17 ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu si khayr qabo uu noogu dhameeyo walaalayaal caawa mawduuc badan baan isku daagi doonaa khasuusan arrimaha ka taagan geeska Djibouti Ethiopia Eritrea Somaliland Soomaaliya marka runtii wax badan baa madaragtay nagu soo socda wax badan baa madaragtay nagu soo dhow bal ilaahay sharkaas ilaahay khayr ha noogu bedelo wabillahi tawfiiq dhegaysi wacan soo galaya adigu sidani ahaw si kastaba ha ahaatee haddaad samayso khayr dadku waxay kugu tuhmi doonaan inaad leedahay dan gaara oo kuu qarsan ee ha joojin samaynta ficilka khayrka ah si kastaba ha ahaatee runtu waxay kaa dhigaysaa mid la necab yahay oo wax laga sheego ee noqon runlow si kastaba ha ahaatee ninka xambaarsan afkaarta waaweyn waxaa carqaladayn kara ninka ugu fataalaysan ee samay afkaartaada waaweyn si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa dadka hareerahaada ahaaday inay yihiin dad aan loo adkaysan karin ficiladooda guracan oo naftooda ma ahane aanan dad kale u naxariisan ee adigu jeclow oo naxariis iyo kalgacal fara badan u muuji si kastaba ha ahaatee marka aad xaqiijiso guusha waxaad kasban doontaa saaxiibo eber ah iyo cadowyo dhab ah ee u waradoo u dadaal si kastaba ha ahaatee buur aad dhisaysay sannado aad u fara badan waxaa laga yaabaa inuu midkood ku dumiyo ilbiriqsiyaal qura ee dhiso buurtaada si kastaba ha ahaatee qofka u baahan caawintaada wuxuu kugu eedayn doonaa marka dambe gaabintaada ee wax u qabo dadka u baahan in wax loo qabto si kastaba ha ahaatee dadka waxay jecel yihiin ducafada balse way ixtiraamaan dadka awoodda leh ee noqo qof la joogo oo la fadhiista dadka ducafada ah si kastaba ha ahaatee haddii aad caalamka siisid waxa kuugu fiican waxaa laga yaabaa inuu kuugu beddelo waxa ugu xun ee uu haysto ee adigu u bandhig waxa kuugu fiican si kastaba ha ahaatee khayrka aad samaysid maanta way iloobi karaan dadka beri ee u samay khayrka allah dartiisa si kastaba ha ahaatee dadka waxaa laga yaabaa inay ku dulmiyaan ama ay si xun kuu fahmaan ee ha ka tegin si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inaad ku fashilanto dhammaan riyooyinkaaga nolosha ee ha joogsan si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inaad tahay faqiir oo aadan haysan wax hanti ah ee noqo qof faraxsan si kastaba ha ahaatee waad ku guuldaraysan kartaa in aad dadkoo dhan ku qancin weyso afkaartaada quruxda badan ee fahan xaaladooda oo riyadaada horay u wado si kastaba ha ahaatee inkastoysan dadka badankiisa aqoon cadaaladda lagana yaabaa inay nafsadaada ku soo xadgudbaan adigu noqo qof cadaalad sameeya si kastaba ha ahaatee inkastoo dadka qaar ka mida ay been u sheegaan kuwa kale adigu noqo qof run badan si kastaba ha ahaatee waxaa kugu dhici kara cudur ama masiibo aanan haysan kayrka ee noqo qof waxa fiican saadsada rabbina ku mahdiya si kastoo ay ahaataba
dunidani kuma helaysid dhammaan wax kastood rabto ama aad jeceshahay ee noqo qof u mahadceliya allah subxaanahu wa tacaala si kastaba ha ahaatee waa run inay qaar ahaayeen kuwa baqiilada dhaqankaada iyo caawintaada ee adiga noqo qof u roon si kastaba ha ahaatee noloshaada waxaa ku jira dad kuula dhaqmay iska saraysiin iyo isweynayn ee adiga noqo qof isdhuldhiga si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inaad weli xasuusato dhibaatooyin ay kuu geysteen kuwa dadka kuugu dhowaa ee adiga noqo qof samro oo cafiya si kastaba ha ahaatee ugu dambayn kulligeena waan dhiman doonnaa si kastaba ha ahaatee ee ha ka tegin adduunkan adigoonan kaga tegin saamayn wanaagsan oo kaa harta waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلهيو طريقة وناكسن إلهو نمري ولا ليال مركي هوري دور بريكور لغا صدح بريكور يعني جعلهاي وحان كهاد لي أرنت مدركتي حلدمان محمد أبيب saan iigu sheegay mar horeba baraha bulshada aad ka maqasheen xildhibaan maxamed abiib wuxuu jiifaa jabuuti buu joogaa oo riwaayad laleeyahay waa lagu daweynayaa xanuun ku soo booday yaa laisla dhex wareegayaa waxaa kaloo baraha bulshada soo gashay rag youtubere iyo facebookba ah oo ka lacag qaata taliska jabuuti khasuusan nabad sugidda jabuuti oo lacagahaas ay ka qaadanayaan ay been abuur ka dhigayaan arrimaha aan sheegayno iyo dhibta loo geystay maxamed abiib ayay ku leeyihiin waxba kama jiro maxamed abiib wuu caafimaad qabaa maxamed abiib waa dana gaaruu marka jabuuti u joogaa howluu wadaa maxamed abiib iyo ruwaadsaas oo waxaan la sheegaayo iyo ninkan suldaan cabdilla dabarkaale uu sheegaayo ee ah inuu maxamed abiib uu buko uu sankaraad yahay uu khatar ku jiro waxba kama jiraan marka waxaan caddaynaynaa oon sheegaynaa maxamed abiib uu fiican yahay maxamed abiib waa uu iska joogaa jabuuti dana gaaru u joogaa dhowaanna hargeysuu ku soo noqonayaa riwaayaddaas yaa baraha bulshada la isla marinayaa kadib maanta oon baaritaan ku doonay oon raggaas facebooka iyo youtuberada maaragta la ii sheegay oon dabagalayay waxaa ii soo baxda oo caddaatay inay raggii baaqii iyo arrimihii ay ka soo dhigeen beejashkooga ay ka saareen sababtoo way garanayaan inuu suldaan cabdilla dabarkaale ka daba tagaayo oo iyakana madaragtay khashifaayo siday ugu xidhan yihiin taliska ismaaciil cumar geelle iyo nabad sugidda jabuuti siday ugu shaqeeyaan waxaan ku celinayaa si fiican ii dhegeysta waxaan ku celinayaa informationka iyo wararka xogogaalka ah ee aan jabuuti ka haysano asxaab iyo rag halgamayaala oo u halgama madaragtay cadaaladda iyo sinaanta waxay noo soo sheegeen oon ku celinayaa maxamed abiib xildhibaan aad buu u bukaa aad buu xanuunsan yahay horena waan u sheegoon ka hadlay taliska jabuuti nabad suguddiisa iyo ismaaciil cumar geelle iyo khadra maxamuud xayd dadka siday u sumeeyaan siday u dilaan intaasoo jeer baan ka hadlay waana midoo maxamed abiib arrintiisana waan ka hadlay oo dee runtii baryahan waad ogeedeen howlaha iyo siyaasadda xaggu kaga jiray somalilan laakiin
socdaalkiisii iyo howluhu qabanayay meel dheer bay la gashay isaga iyo madaragtay teeska jabuuti iyo isaga iyo madaragtay rag ka mida madaragtay dowladda soomaaliya ee xasan sheekh habase noqotee laakiin go'aanka ay gaadheen waxa weeyaan tii ilaahayna waa gaar laakiin mar haddii lagu soo booday xildhibaan maxamed abiib oy u badantahay 99% in suntii jabuuti laga meeleegayay la siiyey uuna la jiifo jabuuti oo la leeyahay waa la daweynayaa arrintaas khatarteeday leedahay waan ku celinayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad familiga maxamed abiib ka qaada jabuuti ka dhoofiya dubay geeya haddaad dubay geen karinna turkish geeya istanbul geeya jabuuti waxa weeyaan isagoo madaragtay saxaarad lagu sido yaa la nii soo celin ilaahay kama dhigo waxaan ugu duceynayaa inuu ilaahay hadalladeedaas ayna gara maraan ayna waxba ka jirin oo ay khalad tahay oon information been abuura la ii sheegay laakiinse waxaan garanayaa saan iigu sheegay 99% raggaas aan warka ka hayo iyo aqoontaan u leeyahay ismaaciil cumar geelle iyo khadra iyo taliskaas siduu u shaqeeyo aqoonta aan u leeyahay waxa weeyaan go'aan bay ku gaadheen in ay maxamed habiib inay kharajiyaan isaga keligiina maaha rag badan bay maaragtay ay seefta guud saarantay hadday noqoto boorama hadday noqoto hargeysa hadday noqoto muqdisho iyo hadday noqoto maaragtay boosaasaba waanad garanaysiinoo mar hor iyo dhowr jeerna waan ka hadlay boosaaso aqalka martida ee lagu magac daray martida ciise ee boosaaso ku yaalla waa meesha laga maleego ee laynka isku xidhan qolooyinka argagixisada hadday noqoto dacish iyo hadday noqoto isba marka dani madaxweynaha maaragtay puntland ma og yahay ma la socdaa sababtoo gurigaas waxaa la dhisay oo raggaas hawsha ku jira loo dhigay isaga hortii waana guri lagu magacaabay waa martida ganacsatada jabuuti ka timaada yaa halkaas ku soo degta qof kale looma ogolo rag ciidamada oo ciidanka nabad sugidda jabuutiya yaa gaarka haya qof gali kara oo aan la ogeyn ma jiro marka taas reer boosaaso way wala garanayaan dowladdana waxaan kula talinayaa dowladda puntland aqalkaas gacanta mariya ragga meesha ku jirana qaqabta wixii dembi aad ku heshiinna xabsiga geeya hadday ku caddaato inay raggaas hawshaas ku jireen sababtoo dhibaatay ka geysteen puntland hadday noqoto boosaaso hadday noqoto garowe hadday noqoto gaalkacyo dhibaatay ka geysteen oo nabad sugidda maarka puntland hadalkan ku hadlayo way garanaysaa inta rag madarka lagu khaarijiye boosaaso garowe iyo gaalkacyo way garanayaan oy baaritaankooga ku jiraan halkaa waad ka helaysiin halkaas gurigaas waad ka helaysiin raggaana qabta waa mid marka waxaan u soo noqonayaa maxamed habiib reerkiisow familigiisow tii ilaahay waa gaar ee maxamed habiib waa niigu celinayaa walaalayaal meesha ka qaada haddii uu maxamed habiib caafimaad qabo dhegeysta hadduu maxamed habiib caafimaad qabo hadduu xor yahay hadduu madaragtay uu dhibaato uuna ku jirin hadday noqoto in la haysto ostage loo haysto uu xabsi ku jiro xabsi been abuura oo ismaaciil cumar geelle amarkaa ka yimiday nin kale kama iman waa ismaaciil iyo xasan saciid marka waxaan leeyahay suldaan cabdulla dabarkaale ha beeneeyo muxuu ku beenaynayaa ma aha
cajalad iyo video laga duubay jabuuti maaha cajalad ha ku hadlo ha soo dubo diyaaraddana ha qaato ha baxo oo hargeysa ha yimaado booram ha yimaado oo haraa markaas suldaan cabdalla dabarkaale waa beenlow waan ogolay halkaa hadday noqoto xaal baan bixinayaa maxamed habiib xaal baan bixinayaa laakiinse mid baan ogay inta uuna maxamed habiib uuna soo fadhiisan intuuna halkaas uu afkiisa isagoo nool oo caafimaad qaba oo aan arkayno ayna jirin isagoo jabuuti ka baxay oo boorama xor u tagaayo oo hargeysa xor u tagaaya aanan arag annaka xaggayaga waxa weeyaan ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisaas yaa ka mas-uula wixii ninkaas walaalkeena soo gaadhay hadalkaa wuu nii cadiyaan mayaa waxaan sheegaya hadday been tahay maxamed habiib tii hore wuu dhegeysto waa lai sheegay cajiraddeedii hore waa loo geeyey wuu dhegaystay hadduu malqi karay iyo hadduu malqi karaynba waxaa laga yiri waa loo geeyey laakiin conditionkiisu waa sidee anigu warkaan hay waxa weeyaan waxaa ku xidhan baalkii naqaska ku xidhanoo wuu jiifaa waxaa lays dhex wadaa oo wararka lai dhiibaayo dhakhtarka suudaantu ku jiraa waa meeshii dhakhtarkii la geeyey maaragtay gabadhii ilaahu naxariistay khadiijo maxamed diiriye ee wasiirkaed ee iyadana saa ku socotay haddii kale wuxuu joogaa baa laga yidhi dhakhtarka ciidanka jabuuti yuu joogaa marka waa middaas haddii waxaan sheegaya ay been tahay waxaan leeyahay taliska jabuutiyow raggay dhegaysanaya ila socdow nabad sugidda jabuuti ay garanaysay ismaaciil cumar geello ay dhegaysanaya iyo khadra maxamuud hayde fasaxa oo waxaad ka tirahdeen xildhibaankaas war xildhibaan ninkan waan ka seexan laanahay kaalay maaragtay beenee tigirkaagina waa kaasoo iska bax oo hargeysiya boolimadoo jooga halkaa haddana maaragtay shir jiraad kaga qabo maaragtay ninkaas dariiqa ka saar way noqon weyday waxa weeyaan wixii ka yimaada wixii loo geysto maxamed habiib jabuuti baa ka mas-uula waa middaas midna halkan dardaaranna waan u diraya shalay iyo daratole waan ka hadlay ninka xirsi ee xisbiga madaragtay waddani madaxda ka ah war xirsiyow adiguna waxaan kuu soo jeedinayaa waad ogtay xildhibaan maxamed ali halkuu halganka uu nigala galay si madaragtay xukunka aad u timaadiin wixii dhexdiinaa ee xisbiga waddani iyo cabdiraxmaan ciro madaxweynihiina si gaara u dhammaysta laakiin wakhtiga maanta xirsiyow wiilkaas xildhibaanka ee aad walalahaydeen ciishoo milax aad wala cunayseen haddii ay wax soo gaadhaan waan kugu celinayaa haddii ay maxamed habiib xildhibaan ay wax soo gaadhaan xirsiyow qoortaad ku sidataa sababtoo adiga iyo ismaaciil cumar geelle waxaa niga dhexeeya iyo saaxiibnimadiina iyo shukaansigiina waa lala wada socdaa adiga iyo ninka nabad sugidda jabuuti xasan siciid waxaa niga dhexeeya waa la wada garanayaa marka niyahow wax walba dhinac iska dhiga madaxweynihinu waa kaay malqaaya madaxweyne cabdiraxmaan ciro oon isagana halkan ka salaamayo walaaladeeyow ninkaa badbaadiye ninkaa dhallinyarta khaladaad wuu gali karaa dhibaatooyin wuu gali karaa hadday noqoto xisbiga waddani hadday noqoto somalilan laakiin naf bilaadan baa wax walba ka weyn khalad iyo dhib waa laga heshiin karaa taa maahine dhiig baa laga heshiiyaa dhiig iyo dil baa laga heshiiyaa marka sidaas daraaddeed xirsigo waxaan ku leeyahay hawshaa gal cabdiraxmaan ciro madaxweyne hawshaa gala waa midoo haddii aan la soo fasaxayn oona soo baxayn ku dadaala in maxamed habiib aad jabuuti ka qaadiin
oo u dirtiin madaragtay dubay saaxiibadiin oo dhakhtar halkaas dubay la geliyo oo lagu daweeyo waa hadduu madaragtay halista uu ku jiro aan sheegayo ee aan leeyahay madaragtay waa la sumeeyey way noqon weyday maxamed habiib hargeysa ha yimaado way noqon weyday deg maxamed habiib ha hadlo siduu yahay kondishinkiisa eega way noqon weyday intaas haddaad yeeli weydiin walaalayaal ilmaadeerayaal abtiyaal waxaan leeyahay mas-uuliyad culus baa korkiina saaran oo jibuuti ka dambayso waxaaba dhici kartaba dhibta iyo dhibaataday u geysanayaan maxamed habiib inuu ismaaciil doonayaba inuu kacdoonka iyo jabhadaha ka soo wado awdal inuu halkaa ka soo kiciyo yiraa maxamed habiib waxaa dilay madaragtay cabdiraxmaan ciro maxamed habiib waxaa dilay maaragtay xirsi oo halkaas dhibaato uu ka dhex dhaliyo qowmiyadda madaragtay samaroon ee gadabursi iyo xukunka madaragtay cabdiraxmaan ciro uu madaragtay uu gacanta ku qabtay waan la socdaa waan ogahay jiijiidka ka dhex taagan ismaaciil iyo amarka uu ku dhiibay uu leeyahay cabdiraxmaan ciro ha yimaado oo jabuuti aan ku casuumaynaya waxaas waxba kama jiraan marka waxaan leeyahay walaalayaal arrintaa xildhibaan maxamed habiib sida ugu dhaqsaha badan gala ninka naftiisa badbaadiya haddii la nigeera ninkaas wuu fiican yahay wuu caafimaad qabaa ninkaas wuxuu sheegaya waa been waa oday sidaasa waa oday kani kalaa waxaas haddii la nigeera maxamed habiib inaan la hadalnaan doonaynaa waxaan doonaynaa inuu maxamed habiib hargeysa noogu yimaado shaqaa u taalla waa nin xildhibaana ha noo yimaado intaa haddaad weydiin oo intaad dhammayn weydiin wixii kala damaaragtay ummadda somaliland baan u daynayaa iyo ummadda jabuuti ummadda somaliland iyo ummadda jabuuti baan u daynayaa markaan sii daadegana arrintaa waxay u taallaa ciise iyo samaroon maxamed habiib haddii arrintaas aan sheegayo uu ku hooydo ilaahay kama baryaaye ilahayna waxaan uga baryaa inuu caafimaad siiyo wa billahi towfiiq asalaamu calaykum waxaan doonayaa walaalayaal reer jabuutiyo intaan reer jabuuti galan bal waxaan la hadlayaa abteladay ciise waxbaan isweydiinayaa oon ka yaabay maanta marka lai soo diray ajirad baa lai soo diray videoya waxaan u malayaa inay diri dhaba tahay iyo mooyaan inay shinayla tahay iyo inay tahay madaragtay ii sheeg muxuu ahaa magaaladii kale la dhisay shinaylaan jecelahay aba madaragtay tii diri dhaba garabay aba diri dhaba ka dhig laakiin waxaa lai soo diray dariiq qurux badan oo daamurmarsan yahay oo dheer oo geedi iyo ay laga dhex beeray garabkiisa dariiqa waxaa loo bixiyey xeerkii ciise bal dhegeysta ilahay baa nigu dhaariyey dariiqa waxaa loo bixiyey xeerkii ciise waxbaa siya aniga markii aan dariiqii arkay iyo markaan arkay boodboodkii iyo orodkii iyo durmaanka uu ismaaciil tumaayay from jabuuti ilaa iyo etoobiya ilaa iyo adduunka ilaa iyo meel kasta ilaa yurub maraykan xeer ciise in xeerkii ciise in dariiq laga dhigo waan fajacay runtii waan fajacay waan yaabay maxaan ku fajacay maxaan ku yaabay waxaan ku fajacon ku yaabay dariiq de waa dariiq la maro baabuur baa marta xawayaan baa marta wasakh baa lagu daadiyaa waa lagu kaadshaa xaar baa lagu tuuri karaa qandhuuf baa lagu tufaa dariiq waa dariiq laakiin dariiq xeer ciise xambaarsan ninka iyo baragga madaragtay fikirkaa keenay ee lagu raacay hadday run tahay
waxaa dhici karta inay social mediaga la soo geliya laakiin ay been abuurtay laakiin hadday run tahay oo diri dhabaaba shiniile aba deegaanka maaragtay abtalada ee ciise ee etoobiya maaragtay dariiqa loogu bixiyey xeer ciise waa khalad abtiyow waa khalad ogaas mustafow waa khalad xeerka ciise sidaad u boodboodayseen sidaad u faraxsaneedeen sidaad magaca maaragtay aad u kolkolinayseen dee waa inuu ka muuqdaa meel siraadmaysa musee noqotaya meel kale noqotaya laakiin waa inay meel magac leh oo la leeyahay allah xeer ciise waa kaas waa middaas laakiin dariiq oo gudaafad kasta marayso oo xaar iyo kaadi lagu daadinayo in magac xeer ciise laga dhigo taas suldaan cabdillow ka soo horjeeda marka ragga arrintaas magacaas soo saaray hadday ahayn maaragtay dee bal wax lagu tijaabinayo la eegayo laleeyahay shaqadii ismaaciil uu leeyahay maaragtay bal horta bal ismaaciil cilladiisaan garanaya waxa weeyaan markuu wax doonayo inuu wax meel soo dhigo horta maaragtay rag buu soo dhiibaa baraha bulshadu soo geliyaa bal eega oo nabadsigadaas soo tuurta marka la soo tuuro waa la eegaa muddo 7 beri 10 beri 15 beri bil baa manor la sugaa wixii ka soo noqonaya ummaddu sida u arkayso ummaddu hadday boodboodo sidaan ka dhex arkayay videoga qoraaladii lagu soo qoray maasha allah alxamdulilah alla dariiqa qurux badana xeer ciise qurux badana qoraalada waan arkay nabad suguduna way akhrisanaysaa marka haddii arrintaas aan wax official laga dhigin ee la tahay tijaabo ka timid xaggaa jabuuti waxaan leeyahay abtiyaladay intay dhegaysanaysa ee maskaxda leh ee fikirka leh ee sharafta dhowraysa xeer ciise ka joogsada arrintaana ka tuura ma qabato xeer ciise wax kale la doona meel kale la doona magac iyo sharaf iyo sumcad la doona laakiin dariiq baan ka dhigaynaa oon u bixinaynaa xeer ciise waa xaaraan taas intaa baan kaga baxay waxaan kaloon doonayaa inaan nila wadaago maxamed yuusuf waan dhowaa mahadsanid rabadaan kariim raallahaw rabadaan kariim waxaan doonayaa inaan nila wadaago reer jabuutiyo sidey wax niga yihiin waa mid waxaa soo socda waxaan arkayno eed ininkuna arkaysiin waa wax aad madaragtay madaxa laga qabsado waxaad arkaysiin in qoladii xuutiyiinteed ee sanca joogtay iyo maraykanka iyo yurub halkay isla marayaan waad ogtihiin waxaa ka dhexeeya xuutiyiinta jabuuti joogta iyo xuutiyiinta madaragtay joogta madaragtay sanca waad ogtihiin maraykan wuu ogyahay faransiis ingiriisi kulligooda wala ogyihiin in xuutiyiinta jabuuti joogta ee bankiga kule waan wala garanaynaa xawaaladayaasha sariflayaasha kule waan wala garanaynaa lacagtii cali cabdalla saalax na waa nin xuuti u ahaa cali cabdalla saalax wuxuu ka soo jeeday qoomiyadda madaragtay xuutiyiinta oo diinta xuutiyiintu ay wadato yuu madaragtay ku jiray lacagihiisii oo dhan jabuuti baa la keenay dahab noqotayaa lacag noqotayaa wixii oo dhan jabuuti baa la keenay bank baa lagu furay reer cali cabdilla saalax yaa gacanta ku haya dhammaantood waxaa jabuuti soo galay iyo intii kale joogtaba waxaa la wada siiyey baasbooradii oo reer jabuuti baa laga dhigay si fiican i dhegeysta maanta waxaan malqaayay taliyihii ciidanka madaragtay sanca ciidanka xuutiyiinta taliyaha u sareeyey wuxuu go'aan ku gaadhay duqayntii uu maraykanka ku sameeyey sanca xalay habeen hore beryahan inay iyakuna saldhigga jabuuti ku yaalla ay duqaynayaan si fiican i dhegeysta inay saldhigga jabuuti ku yaalla ay duqaynayaan mid baa see jirta
walow ismaaciil iyo reerihiisu ay gadaal xagga ay haramuus ay galeen oy leeyihiin haddii la duqaynayo maraykan iyo faransiis iyo waxa ha la duqeeyo oo iyakuna ay dabada kaga jiraan laakiinse mid baan u sheegay reer jabuuti gantaalka la soo tuuro qabiil ma yaqaano qolo ma yaqaano laakiinse waa midoo laba dhinac baa loo kala tuuri karaa in meeshii ay degan yihiin lacagleyda xaram house waxaad ugu yeedhiin ninku haramuus baad ugu yeedhiine annaku xaram house baan ugu yeedhnaa guryihii xaaraanta halkaas gantaalka waa lagu tuuri karaa waa kow waa marka ay xuutiyiintu ay go-aan gaadhaan inay ka aargoostaan ismaaciil iyo ragooga waa mid gantaalka hadday doonaan waxay ku tuuri karaan halkaa iyo maraykan iyo ruush qolo walba waa mid labaad gantaalka waxaa lagu tuuri karaa shicibka dhexdiisa oo shicibka waa la gumaadi karaa yes laakiin maxaa ka dhalan doona waan ii sheegaya maxaa ka dhalan doona gantaalada u horey markay dhacaan oo gantaaladuna ay hayn boqolkiiba boqol inay maraykan iyo meelahaasay ku dhacayaan sababtoo ah maraykanka iyo faransiiska iyo ciidamadaas meesha jooga waxay haystaan qalab elektroniga oo gantaalka weecin karaa la socda gantaalka aba way weecin karaan oo meel kale lagu tuuri karaa aba gantaalka waa laga hor dhici karaa waa la gubi karaa intuu cirka ku soo socdo okay haddii arrintaas gantaalka la weecinayo hadday ku weecato qaybta maaragtay shicibka reer jabuuti oo halkaa lagu gumaado reactionka muxuu dhacayaa muxuu noqonayaa wax kale ma ah aargoostad buu noqonayaa ciise iyo canfar isaaq gadabusi reer jabuuti marka boqolaal reeraha reer jabuuti ee masaakiinta ee gaajadudusha markas rasaastaas iyo gantaalka uu ku dhaco iyakuna waxay ka argoosanayaan ay gacanta marinayaan imankaan niisii sheegayaan meel kale maaha waa yemaniinta jabuuti ku nool yemen kasta oo jabuuti ku nool khatar buu ku jiraa aan waxba galabsan oo aanan ku jirin xuutiyiin aan shaqo ku lahayn arrintaas darteed uu ismaaciil keenay inuu halkaas uu xuutiyiinta ku beero inuu halkaas maaragtay uu transitionka uu kaga jiro oo maraykana ogyahay yurubna ay og yihiin khatarteeda leedahay marka waxaan leeyahay reer jabuutiyo canfar iyo ciise iyo qolo kastaba walaalayaal yemaniinta masaakiinta yemaniinta reer jabuuti wax ay nii geysteen ma jirto waxay nii geysteen ma jirto waxa arrintaa maleegaya waxa arrintaa ka dambeeya waad garanaysiin waa ninkaa meesha aad ku haysiin eed ka foorartiin ninkaa meesha jooga eed ka foorartiin in habeen iyo maalinba maaragtay aan nii sheegano ee aad arkaysiin qurunka iyo guddaafadu ka taagan yahay in maantana maaragta gantaala nagu garaaco taas waa xaaraan marka ha eegina yemaniinta masaakiinta dhulkoogii la gubay aan waxba galabsan gantaalkaas ku dhacay shicibka reer jabuuti ha eegina yemaniinta shaqo kuma leh ee laakiin taas hadday timaado ilaahay ma keeno oo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga badbaadiyo oo xuutiyiintu ayna soo gaadhin jabuuti laakiin hadday dhacdo meel kale ha eegina meel kale ha eegina nin kalena ha doondoonina waa haramuus waa ismaaciil cumar geelle iyo reerkiisa yaad doonanaysiin waad aamusteen waad foorarteen ma gantaal kalead sugaysiin gantaaladu saabay niigu dhacayaan gantaaladu saabay niigu dhaceen taasina halkaa baan kaga baxay oo nila wadeegaya waxaan kaloon doonayaa reer jabuutiyo horta dhowaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waa la kala baxayaa dhowaan waa la kala baxayaa see loo kala baxayaa geeska afrika wuu isbedelayaa geeska afrika wuu isbedelayaa isbedelaad wuxuu ka imanayaa eritrea 1 isbedelaad wuxuu ka imanayaa etoobiya 2 isbedelaad waxay ka imanaysaa somaliland 3 isbedelaad waxay ka imanaysaa muqdisho intaba way legleganayaan saabu dhulka wala ciyaaraya waa midoo jabuutina kubadda way ku jirtaa jabuutina kubadda way ku jirtaa sababtoo waxa weeyaan laba nin
horta madartay ciyaartu kama qoslisiinayso waa eritrea isaas afoorki iyo abiy axmed etoobiya labadaas horaan niigu sheegay waa niigu celinayaa abba isaas baa joogi abba abiy axmed baa joogi laakiin labadu meel ma wala joogayaan waa xaaraan labadaas meel ma wala joogayaan waa xaaraan way kala baxayaan tay ku kala baxayaanna wax kale maaha waa haddii intayna isku soo dhicin haddaan abiy la qaban kow haddaan isaas la qaban labo labadaas haddii ciidamadooda iyo nabadsugudooda iyo dalkooga iyo dowladooda haddayna iyagu is qaban waxa weeyaan waa la ysku dhacayaa haddii la ysku dhacana ninka laga adkaanayo waa nii sheegaya iminkaan nii sheegaya dabada ha mermeriyo canfar ha soo qaado oo sidii markii horeba uu sameeyey tigray ha la soo qaado ha la yidhaha canfarey casab baa lana siinaya canfarey masawca baa lana siinaya canfarey waad malqaysan madate wuxuu ku sheekeynaya abiy axmed canfarto casab iyo kaale masawac iyo kaale eritrea qaybtaas iyagaas kale waa xor bay u leeyihin inay meeshay doonaan ay tagaan kow ma canfar buu jecel yahay qoran gudaafad ma canfar buu jecel yahay waa maya waxa weeyaan waa jiriloole saabu isku rogrogaa subax kasta iyo maalin kastaba saabu isku rogrogaa wuxuu maanta kuu sheegay wuxuu maanta kula galay beritoo laguma imanaysa horta ninkii waa laga aamin baxay waa beenlow waa khaayin dhinac walba wuxuu ku beersaday weliba dilaa oo gacmaha uu dhiig ku leeyahay marka sidaa daraaddeed canfarey waxaan leehay canfarey dagaalkaas nimo khuseeyo ka baxa halkiina iska jooga samaaro jooga canfarey taladaa tii hore waad igu diideen tii shalay toole markaan nila hadlayan lahaa dagaalka tigree ka joogsada wixii soo gaadhay canfar iyo wixii ay dhibaato la kulantay ilaahay ha u naxariisee kumayaal mujaahidiina oo canfara yaa ku baabaaday waa midoo tigree waad qabateen waad joojiseen kursigii abiyo waad u qabateen abaal maxaad ka hesheen waxba kamaad helin ma tani madaragtay uu ininka iyo ciise madaragtay kubadda nii kala tuurayaa oo ismaaciil ay gadaal kula jiraan canfar baan jecela canfar qurunka iyo ruwaadda waad ogtiin waanad garanaysin oo dhiigga ciise iyo canfar waxaa keenay waa abiye iyo ismaaciil marka waa mid awal arbana waan u sheegaya si fiican hay dhegaysto igana gaarsiiya awal arba enough is enough canfar dambe oo dagaal galaysa ya waa ka xaaraan waa midoo abiye iyo isaas hadday is doonayaan bannaanku wuu furan yahay waa midoo waxaan kuu sheegaya awal arba iskama celin karaysid eritrea plus tigree tplf oo aad godob ka gashay oo iyaduna adigana ku eeganaysa wixii ku soo raacana eeganaysa tplf aba tdf tigree defense force waa labo waxaad kaloo ku dartaa fano amxaaro 3 waxaad kaloo ku dartaa ola oromo 4 afartaaswa awal arba way ku eeganaysaa afartaaswa awal arba way ku eeganaysaa haddaad ka joogsan weydid oo haddana aad abiy aad soo raacid ood canfar masaakiintaas iyo dhalinyartaas aad haddana ku dirtid oo tira maaragtay soo kaco maaragtay noqda maaragtay qoladii la gumaadayay canfarna beritul way kula xisaabtamay oo taas laba calis ma weydiinayso tigree eritrea amxaaro fano oromo ola iyakuna way kula xisaabtamayaan oo waxaad noqonaysaa ragga beritoola la qabanaya maxkamadda la keenayo siday kuwii maaragtay shalay mangiste la joogay ee xabsiga maaragtay lagu guray maaragtay sandhaafa kuwii oo kale laakiin adiga weliba waxaa kugu soo socda aad marayn karayn marka waxaan ku leehay tii hore waad ku khaldantay laakiin khaladkaad gashay tii hore
qasab bay kugu hayd oo dhinaca kale abi wuxuu kuu sheegay in haddii aad dagaalka aad geli weydiin in madaragtay ismaaciil uu soo hubeynayo ciise oo maxay ahayd samaare la gubayo oo taas waan ku fahmayaa canfarna way kula aragtay qasab bay kugu noqotay oo qoorta midi lagu geliyey shalay toole markaad dagaalka tigrey la galaysay qasab bay kugu hedo midi baa qoorta lagu geliyey sababtoo ah ciidan buu ismaaciil iyo abi ay dhinacan gadaal kaa dhigeen oo abtiyaaladaya oo la yidhi canfar halkaa baan ku diraynaa hadday diidaan samaaro taga waa ka xooggiiyo hubkiina waa diyaara marka qasab bay kugu noqotay laakiin maanta maya maanta hub baad haysataa magac baad leedahay sharaf baad leedihiin halgamayaal baad tihiin marka maanta dagaalkaas casab ana kaale canfar baa ku nool masawac ana kaale canfar baa ku nool canfar waa canfar hadday noqoto eritrea jabuuti etoobiya waa mid canfar waa canfar ninama caaro dheera siduu abtigay ciise uu yidhi ciise waa ciise ninama caaro dheera marka waxa weyaan hawshaas dikadda casab iyo masawac waktigay noqotaba canfar waa usoo gacan gali inay keligeed noqoto dowlad inay madaragtay ay noqoto madaragtay etoobiya inay jabuuti noqoto way noo taallaa laakiin dagaal dhiig aan u galno abi aan ku badbaadino waa xaaraan waana midoo iskama celin karaysid awal arbow iskama celin karaysid tigrey eritrea fano ola iskama celin karaysid iskama celin karaysid marka waxaan ku leehay ka joogsa arrintaas reerkan kale ogaadeen mustafa xajar isaga ogaadeen waa la garanayaa lacag haddii loo tuuro ilmahay dhaleen bay madaragtay dabka geenayaan ilmahay dhaleen yay dabka geenayaan rag madaragtay 300 oo wiil oo jabhadiya ragga madaragtay iibsaday oo ismaaciil ka iibiyey oo madaragtay EPRDF ka iibiyey ee lagu gumaaday madaragtay halkaa iyo madaragtay korkaas madaragtay badda madaragtay xeebta madaragtay somaliland lagu gumaaday oo ninkii tuuggaha ee ka iibiyey ismaaciil jabuuti uu joogay oo maantana laga dhigay maaragtay nabad sugidda soomaaliyeed ee maaragtay jijiga laga qaado imkana laga dhigay wasiirka maaragtay maaliyadda iyo maaragtay wasiir ku-xigeen meel oona guri dhan oo san dhanna ka iibsaday maaragtay addis ababa qurunka horta waa kaas waana ogaadeen shalay tolana yaa dhisay jeel ogaadeen buu ahaa waayo ragga iyo carruurta iyo gabdhaha lagu faraxumaynayo oo ogaadeena marka wax weeyaan ogaadeen ummad kale inuu ka naxa iska daaye ummaddiisuu ka naxilaaya ummaddiisuu wax kalena uu ku iibsanayaa halkaas shalay markaan dubay joogayna indhahaygaan ku arkayay waxay samaynayeen iyo lacagihii ay ka soo gurayeen masaakiinta ogaadeenka dumar iyo hooyooyin oo madaragtay aan ognahay maraykan iyo canada iyo UK iyo yurub meel kastaba joogo waxay siday ku helaan shilimaadka ay helaan iyo siday ugu shaqaynayaan ay madaragtay ay dhididkoogu haystaan lacagahay madaragtay ay jabhadda madaragtay ay ku biilinayeen lacagahaas oo malyumaada la keenay dubay oo rag madaragtay dukaano dahaba loogu dhisay oo kadib markii dambe la dhacay oo kuwo kaloo madaragtay cargo xafiiskayga garabkiisa looga dhisay oo kadib markii dambe kani aan sheegaya tuugga guri laleeyahay aniga xafiiskayga garabkayga xafiis looga furay isagoo basboorkii jabuuti wata horta qurunkaas waa kaas ogaadeenna jabhaddaasna anigaa ilaalinayay 25 sanadood hadday noqoto eritrea 25 sanadood casab korkeeda anaa ilaalinayay oo canfar baa ilaalinaysa waana kuwii shalay tole ku faanaya lahaa canfar baan dilaynaa canfar baan gooracaynaa ciisow qurun hore baan u sheegay caddaani iyo raggaas oo dhan iyo mustafa xajar dhammaantood lacagahay ka qaadanayaan ismaaciil intaan ahayd walaa ciisay jecel yihiin walaa soomaali bay jecel yihiin diin iyo miladooda waxa weeyaan waa ka halkaa ugu shubaya walaalkood bay iibinayaan walaalkood bay iibiyeen oon anigu maaragtay aan u joogay oon dubay kala socday markii 300 ee wiil ay canfar soo qaadeen lagu soo qaaday maaragtay ii sheeg muxuu ahaa pirog muxuu ahaa maaragtay doonyihii yaraa lagu soo guray habeen madow oo la sugaayey oo ismaaciil been abuur u sheegay faransiiska iyo maraykanka uu ka yidhi maaragtay
qolooyinka maaragtay wax qarqarxinaysay ee turiiski baa imanayso halkaa ka soo degaysa oo satellite saa loogula socday ya yaana warka geeyey yaana ismaaciil u dhiibay ninka gurey leeraa oo jabuuti jooga oy jabhadduna markaa aaminaysay oo loola socodsiinayay dhaqdhaqaaqa ka socda maaragtay halkaa iyo eritrea waxa uu habeen iyo maalin la socdana iyo telefoonada waxoo dhan ay ku wada hadlayaanna ismaaciil buu gudbinayay iyo nabad suuda jabuuti horta qurunkaas waa kaas marka waxa weeyaan ogaadeen intay dhegaysanaysa ee nadiifta ee qalbiga maaragtay nadiifta ka ah ee dhibta iyo dhibaatada soo martay canfar cadowgiina maaha waxa weeyaan cadowgiinu waa ismaaciil cadowgiinu waa jabuuti waxaan leeyahay ininkuna canfar wanigaa la hadlay wiil ogaadeena tii shalay nagu dhacday yaa 2000 iyo waxaan jecelahay 98 ilaa 2000 intii ku dhimatay intii ku waaratay intii ku jabtay waad garanaysiin casab iyo korkeeda intii shalay tolo tigree dagaalkii tigree intii ku dhimatay ku baabaday iyo intii maaragtay boqolaalkii soo baxsaday canfar baa badbaadisoo ina soo qabato keentay maaragtay jigjiga u soo dirtay marka walaalayaal waxaan leeyahay wiilashiina ka haysta wiilashiina dagaalka ha gelinina wiilashiina badbaadiye halkaa ha iska joogaan aan eegno ciyaarta iyo kubadda ka socota aabiye iyo isaas ciyaarta ka socota fano tigree iyo ola aan eegno kadib dowladda cusub ee dhalanaysa ilaahay khayra ka dhigee dowladda cusub ee dhalanaysa adsaba ka qayb gala ininkoo nadiifa walaa canfar walaa soomaali ininkoo nadiifa oo aan la oranayn dagaal baad gasheenoo dhiig baad daadiseenoo raggaa baad maaragtay aad dagaal la gasheen ininkoo nadiifa adsaba dowladda dhismaysa ka qayb gala iskuna diyaariya taladeeda intaabaa nii dhiibaya inta abtiyaalada ee malqaysa ee dhegeysanaysana waxaan leeyahay abtiyow wiil ciisa halkaa ha geyn isbeddel baa socda dib baad ku jirtaa waad arkaysaa reerihii iyo dadkii ku dhammaaday adiga iyo canfar waa midoo isbeddelka soo socda canfar go'aankeedu way qaadatay dowlado badanna way qaateen taliska ismaaciil wuxuu raacayaa abiy axmed buu raacayaa wallahi baan igu dhaarto magac ilaah taliska ismaaciil abiy axmed buu raacayaa faransiisna wuu og yahay waan u sheegnay maraykanna waan u sheegnay ingiriis waan u sheegnay dowladaha jabuuti jooga dhan waan u sheegnay chinana waan u sheegnay iyaka waxaan dhibaato ku haysanno aba dhibaato aan u geysanayna ma jiro laakiin taliska jabuuti jooga ma sii joogayo waxaweye qas iyo xoog dhinacay doonto baa noqotee yaa lagaga qaadaya meesha waana midoo faransiis iyo maraykan iyo china ma kala garan karaa wiil canfureedoo etoobiya wiil canfureedoo eritrea wiil canfureedoo jabuutiya oo qoriga qaatay ma garanaya wiil ciisa oo etoobiya wiil ciisa oo jabuutiya wiil ciisa oo geerisa somaliland ma kala garan karaa ma kala saari karayo laakiin mid buu ogyahay faransiis iyo maraykan ingiriisi qolo walba yurub in ummad hadday kacdo oy taliskan si iskaga celiso ayna mudaharaad samaynayn ayna marag election samaynayn oo ayna maaragtay ayn xaqooga si pacific oo nabadgelya ayna ku qaadanayn sharciga adduunka u furaya inay ummaddu mar hadday maaragtay madax furanayso inay qoriga qaadato qorigan qaadanaynana ka mid maaha inaan maraykan iyo faransiis iyo ingiriis iyo chiniyo inaan maaragtay aan la galayno maya taas raggaas beritoole xisaab baa noo kala taalla waxay saxeedeen baan isla eegaynaa waxaan isla ogolnaan ka wada hadlaynaa miiskay noo taallaa ixtiraam dowlado iyo dowlado laakiin annaku reer jabuuti waxa weeyaan dhinac walba soomaaliya canfar deegaankan oo dhan annakaa iskale oo gumayskii intuu la iman waan isku wada furnayn walaal baan hayn waan wala noolayn maca salaama laakiin maanta go'aankaas markaan gaadhnay
إن تلسكاس إثيوبيا مركو بدلمو بابكاس ونوفرية إن أنا كنا كياجا إن بدلنا قولكو قادنا يا أيو هذا الكتورنا يا أيو أنا كنا طلع كيس مد بس جيتو رجع تلسك جيبوتي عرورتو دي غيروي يكي كل واحد ولايستان فيزايال سنة يا ولايستان قيو العجينة بنانكي ولا جيستين ومركي باشو ساس ودعو إثيوبيا مركي أبي مركو بحو لقبتو لين على ماريو اوتوماتيكلي عرورتو دي رجاس بحثت بيقرايان صوتو ويقرنايان طلابة اللباد إنay tahay جيبوتي طلابة اللباد إنay جيبوتي ويقرنايان وانا ميدو هاوشا ووضو iyo qorshaha uu doonayo markii inuu awdal kiciyo oo Soomaaliland inuu gubo doonayo oo ku qasbaya Cabdiraxmaan Ciro maartay Djibouti ii kaalay ana wax walba ku haye waxaas waxba kama jiraan Cabdiraxmaan Ciro waxaan leeyahay go'aan fiican bad qaatay halkaaga iska joog go'aanka kale ku gula talin waxa weeyaan abiye ha u tagin waxaad la saxiixaysid iyo waxaad markay aad bad kale hadlaysiin ما جريسو واحد ولا هل كرتينهم دولة دلنا يسا أد سواق بسنة سي أبي داقة كتورس ها إمكا خلاص أبي ودقارك عبد الرحمن عيرو ودقارك مالك استبا وحو قلع يسو وردايو وحل آمنة يا ملي آمنات ملي وانين مدرتي صبح كسيها بين كستبا وحو صوص عربا بنع كبحايا مركا آمنات ملي مركا عبد الرحمن عيرو وحن قولتلنا يا أنو وليبا أد وجعلها إثيوبيا إنه دولا يسوق بضيشوا أنا وجعل أو ديارو أنا مارتين بض أن إثيوبيا لين عول بكسينه يا هذا نوع حنقول هاي آمنات ملك وهذا كيسي شلي طولي مسبح سلو آمني يسلو ولا صحيح سنتك أنتو سجاي ودنا أنت سو جربوا الله أنت سو جربوا بلانو قاضي أنت سو جربوا مركري براد منسا وأكو عزمين كان سمعنا حواس عنا خرافات بهد عبد الرحمن عيرو وكان كاس وحبا يسكو عيبين هالكاغا يسكجو جيبوتي بطلسا هالكاغا يسكجو وحباكم مريد هالكاغا جوب أرقس بدلك سوى الصعودة وامد أبي مركو داقة كبحو وحادو قاتا وذلك دونتا ومدى جيبوتينا يدون الناس حورانيسو عنفر نقضيا عيسى نقضيا سمرون نقضيا الساق نقضيا ومدى جيبوتين وسحورانيسا وانا ميدو مركاسنا ميسكي نوتا الله وحان نغسو وينو يساد نوغا عن قبانيسين سوطوا وحاويان ديد إثيوبيا وحا كسوريا أدا والالكيا إثيوبيا وحا كسوريا أدا والالكيا مركا أنيغا دبتا يهيساتا وانوسخرني كوتا سلود سلاي قالي وذاكيسا waxaa laygu abuuray wadiga arkaya in sawirada meesha soo dhigay in madaragtay caruurteedii gabdhahayagii sida fusuqa loo geliyay wadiga arkaya ninkaas waa cadowga ciise ninkaas halkaas Ismaaciil waa cadowga ciise waa cadowga Somaliland waa cadowga Ethiopia waa cadowga Eritrea waa cadowga Madina Djibouti marka waa in dariiq la mariyaa laba calismo weydiinayso si aan ummadda Djibouti aan waxay naga sugayso inuu ilaahay nala qabto oo aan madaragtay aan ilowsiino laakiin wixii la geystay sharcigan la tigsanayna marka walaalayaal caawa intaa baan nagaga tagayaa waxayna ahaydna madaragtay in waano iyo madaragtay iswadaarsi informationkan haya xaaladdu meeshii ugu xumeed bay maraysaa waana midoo toddobaadadan soo socda caawadaabay dhici kartaa caawadaas ayay dhici kartaa laakiin mid baa sii jirta Abiy Ahmed cidlu taagan yahay Isaas Afwerki waa diyaar TPLF waa diyaar Fano waa diyaar Ola waa diyaar mucaaradka Ethiopia oo dhanna waa wala diyaar nin walba uu sugayaa Abiy sidoo ku baxaayo iyo sida loo qabanay laakiin wax u dagaaltamaya iyo wax u galaya xaraam bay ka tahay ilaahayna khayr ka dhigo ummadda Djiboutina waniga u sheegay ummadda Djibouti isbedel baa soo socda
isbeddel alxamdulilah rabbilcaalamiin oo runtii aan sugaynin intaasoo dhan baa soo socda 3 jeer baan iskhaladnay 7 9 ya iyo waqtiga xaadirka maanta ee konton sano aan soo gaarnay mar dambe isma khaldeenin waayo aragnimaan qaadanay experience baan haysanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waanan kala garanaynaa cadowgeenna iyo sadiiqeenna waan kala garanaynaa ninka shalayna dilay iyo ninka shalayna badbaadiyey waan ognah waanan garanaynaa xisaabna way noo dambaysaa marka waa billahi towfiiq waxaan leeyahay habeen wanaagsan khayr baan igaga tagayaa waxaan leeyahay xusbiga waddani iyo cabdiraxmaan ciro madaxweynaha somalilan ha iloobina walaalkiin saaxiibkiin xildhibaan maxamed abiib walow shalay toole uu khaladaad uu galay laakiin taas ay tahay waayo aragnimo ku filan ma haysan dee biniaadankuna wuu khaldami karaa ilaahay un baana khaldamin intaa iyo ka badan baa la isku dhaafi karaa laga heshiin karaa marka xildhibaan maxamed abiib cidlaha kaga tegina hana ku eegina cadowgaas inuu meesha ku dila doonayo khayr baan igaga tagayaa sheergareya igana gaarsiiya meel kaste alxamdulilah rabbilcaalamiin habeen wanaagsan rabadaan kariim rabadaan mubaarak